السلام عليكم ورحمة الله دمان أصحابتي aad baan idin salaamay markasta dunida ka joogtaan maanta waxaan ku sugannahay garoonka caalamiga ah ee Allianz Arena ay leedahay kooxda Bayern Munchen waxaan leeyahay muuqaalka halkan ka bilaabmi doona daawasho wacan insha Allah wada socod wanaagsan garoonka Allianz Arena garoonkan Allianz Arena waxa uu ku yaalaa gobolka Bayern gaar ahaan magaalada Munich garoonkan waxa dhismihiisa la bilaabay sanadkii 2002 waxaana la dhameeyay sanadkii 2005 garoonkani waa garoonka labaad ee ugu weyn wadanka Jarmalka oo kaliya waxa ka weyn garoonka ku yaala caasimadda Jarmalka ee Berlin qiimaha lacageed ee ku baxay dhismaha garoonkani waxa uu kor u dhaafayaa in ka badan 340 milyan tirada guud ee fadhiisan karta garoonkani waxay ka badan tahay 75,000 oo taageere halkan aan imika ku sugannahay waa goobta ay ciyaartoydu ku nastaan marka ay ka soo baxaan alaamiitada ama bas ciyaarta isla markaana ay ku sheekaystaan isla markaana ay ku cunteeyaan halkan aanu imika ku sugannahay waa goobta ay ciyaartoyda iyo koojajkoodu ay ku qabtaan shirka jaraa'id maalinta ka horeysa ciyaarta Champions League meeshan aanu imika sii gelaynaa waa goobta ay ku labistaan ciyaartoydu isla markaana ay ugu diyaar garoobaan ciyaarta ka hor sida idin muuqata halkan waxa ka muuqda garamaantoodii iyo meesha ay fadhiistaan waxaan idin leeyahay muuqaalka weli ma dhammaane daawasho wacan صعدكي لافيها إلهي سميها وروح كوسياتي ساف ليدا وفها سام بدا دحدودها سام سميك ساقدو صحوي نبو أبورتي أصحابتي waxaan ku suganahay meesha ay shirka jaraa'id ku qabtaan ciyaartoydu halkan waxay istaagaan ciyaartoyda markay ciyaartu dhamaato halka ay weliyaashu ku wareystaan waxaan weli ku suganahay garoonka Bayern Munchen ee ku yaala magaalada Munchen sidee noqon allaha ogey hadba waxaad ku sugan tahay soo dhib waraaqaha halkan aanu imika sii gelaynaa waa goobta ay ku kaydsan yihiin taariikhaha kooxda Bayern Munich waxaan isku dayi doonaa
inaanu mid mid idiin dul istaajino taariikhda u gaarka ah kooxdan Bayern Munich. sidaad arkaysaan koobabkani waa koobabkii Jarmalka ay qaadeen Bayern Munich sanadkii waa 2019 labada koob Jarmalka sidoo kale waxaan halkan ku arkaysaan 2018 koobabkii liiga Jarmalka. Hadda sidaad arkaysaan ninka waxaan ku suganahay goolka weyn ee kooxda Bayern Munich. Halkan waxaad ka arkaysaan koobabkii ay qaadeen sanadkii dhawaa. Waa Bundesliga, waa liiga Jarmalka, waa Champions League waxay qaadeen 2019.
soo darkaysaan halkan kooxdan waa kooxdooda koobab miidhana kooxda Bayern Munich oo ah koox aad caan uga ah koobabka Yurub iyo kuwa Jarmalkaba waxay ku guuleysatay guud ahaanba 6 Champions League. labadii Champions League ee ugu dambeeyay ee ay qaado kooxdani waxay kala ahaayeen sanadkii 2013 iyo sanadkii 2020. sanadkii 2013 waxay kooxda Bayern Munich guuldarro xooggan ku caraabisay dhigeeda Barcelona taas oo ay natiijo 7-0 kaga caraabiyeen kulanka afar dhamaadka. kadibna waxay finalka iskugu yimaadeen kooxda Borussia Dortmund oo ka dhisan dalka Jarmalka. ugu dambeynna waxa sanadkaas 2013 natiijo 2-1 ah ku guuleystay kooxda Bayern Munich. isla sanadkii 2020 ayay mar kale ku guuleysatay kooxda Bayern Munich Champions League waxaana sanadkaas 2020 natiijo 1-0 kaga guuleysteen kooxda References ee PSG. dhammaan asxaabta muuqaalka intaas maanta videoga rajaynayo ka heshay insha Allah. fadlan la soco channelka, subscribe saar, kana mid noqo asxaabta ku xiran channelka. aad baad u mahadsantihiin.